استاغ وحلان كتج ماي وارون مقدشة وان نمد مرتين كوبنين هوتيل كان وان سو دغني هوران سو دغي جيري ما أنا نوي من أنت الله ما الموت مالين شون مالين تلاوات نقولنا وحنون بدنا سوالي حل كذا قاعدنو ترى لو ذلي هاي وهي صاحب كذا دحين حش شرعا كذا شقين إنما كشقين إن عطنا سجعنا مقال سوينا كوسو بيرو إن شاء الله وانكحهم هاي وحبلان ودعية وحل بعنا حرتها كل دعية وما أنت حقوق الكاهي حلبان هو يدي ومن علا أنت اللي ودي تشيلي لأنها قاضي إن هذا علا اللي جتكي واللي الأرض ماشي على إسبوع لا يسوق قاضي أو هذه الدواتوا وأنا وحساب تنقلي دونت مركا حلبانو waxaad u shaqayseen wixii la idin soo doortay la idin soo igmaday iyo dadka aad ku matalayseen aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqadaad qabateen waana waxaan ka sii wada shaqayn doonaa inta u dambaysana fariimaha iyo hadalladii aan odhan lahaa inta badan waa la yidhi laakiin waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo waxaad saaxiibada yidhaahdeen waxba kuma sii daray weliba inta hadda siciida u dambaysay waan wada hadli doonaa nabad baan u nimid xal waddankan in laga gaadhaan u nimid mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya inayna burburin baan u nimid maanta waa arrintii Cabdi Qaybdiid ka hadlayay abaarta maanta meesha ugu xumeyd bay taagan tahay xoolihii way dhammaadeen gaar ahaan nugulkii dadkii baa hadda dhammaanaya shalay markaan soo baxay iyadoo dagaal xun aan ku jirnaan ka soo baxay meediya dhaawac baa yaalay dhibaatadu way taagan tahay laakiin nasiib darro waxaa dowladnimadii iyada tii weyneed hadday burburtay waxba socon weyday kuwa gaarkeen hoose ku jira waxa ma qabanayaan sidaa daraadeed reer Muqdisho waynu is haynaa waan idin joognaa talaan ku tagi doonaa waxaan la wada leenahay ka wada shaqayn doonaa wax Soomaali u dhaxeeyaan isula iman doonaa taasaana ka shaqaynaynaa kulamo badan iyo wada hadallo badan iyo xiriir badan waan samayn doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh